kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhabka hadal qaybtan hadii ay baha wada ogolaado waxaan u hadalnaa dhankaas iyo magaalada Muqdisho dhacdo aad iyo aad u xanuun badan oo murugadeeda iyo tiiraanyadeeda leh ayaa waxa ay shalay ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gabadh ka mid ahayd gabdhaha ama ardayda Soomaaliyeed oo sanadkan aan filayo in imtixaanaadkii dugsiga sare ay u fariisatay waliba reer qaraabadeeda la joogtay ayaa shalay xaafadii ay joogtay ka baxday macluumaad hawshaas la xiriir ugu dagali doonaa gabadhaasi waxa la sheegay markii ay xaafadii ka baxay dabcan xaafadii ama guri ay aaday iyadoo xaafadii ka maqan oo laga warsugay gabadh inay guriga ku soo laabato kadib xaafadii arrin naxdin ayaa u soo yaartay gabadhii kufsi baa loo geystay kadibna waa la dilay oo dabaq ilaa 6 biyaanaha ayaa laga soo tuuray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ee dhacdadan ka dhacday intii baraha bulshada iyo warbaahinta la socoteen waxaan filayaa inaad aad uga dheregsantiin hawshaas oo xalay ilaa maanta aad la socoteen dhibaatadaasi Muqdisho ka dhacday gabadhaasi loo geystay oo xitaa ehelkeedii aan la joogin laakiin dad qaraabadeeda la joogtay hawshaasi iyo sidii ay u dhacday ayaan eegaynaa naxdinta lahayd iyo sidoo kale dadkii ka hadlay ehelkeeda ahaa iyo sidoo kale dadka qaar oo waliba baraha bulshada soo qoraya culimada Soomaaliyeed waxay uga hadlayeen dhibaatooyinka noocan oo kale maadaama ay indhihii iyo dhagihii bulshada ay yihiin jaamcu soo dhow arintaas naxinta badnayd ee murugada lahayd ehelkii iyo qoyskii gabadhaasi waan la qaybsanaynaa ilaahu naxariisto dawladuna dabcan dad baa la xiray looga shaqeeyay hawshaas bal hawshan hadii aad daawayaasha la wadaagto sidii ay ahayd iyo sidii gabadhan guriga xilliga ay ka baxday iyo sawir ahaa niyo horta waa wallahi waa arrin uur ku taalo iyo xanuun aan dhammaanaynin qof kasta oo Soomaaliya ku reebaysa weeyaan runtiina waa arrin aniga si gaar ah maaragtay saameyn iigu yeelatay ama si gaar ah maaragtay ii taabatay in gabar Soomaaliyeed oo dhalinyaro oo ku jirta xilligii maxaan ku ilaahdaaye to ay ehelkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda maxaan ku ilaahdaaye ay anfici lahayd iyaduna mustaqbalkeeda ay maxaan ku ilaahdaaye dhisi lahayd in kuwa maaragtay magaca Soomaalida wata ama dad maaragtay dhalinyaro ah oo rag ah oo Soomaaliyeed inay maaragtay sidaa yeelaan runtii waa arrin argagaxle oo anigana runtii qalbigayga aad sababta gabdhaha Soomaaliyeed qiimo gaara yay nooleeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed mar way nala dhasheen mar way na dhaleen mar way noo dhaxeen wax walba inoo yihiin waa hugeeni waa yaani indhihii aan wax ku arkayni weeyaan gabdhaha Soomaaliyeed oo hadaarta nin wax noqday baa la yiri gabadhan baa ka dambaysa ama hooyadii ha ahaato ama walaashii ha ahaato nin kasta oo wax noqda gabadhan baa ka dambaysa gabdhaha Soomaaliyeed marka iyagoo madaxa inoo saaran oo mar walba ay yihiin gabdhaheeni haddana mid bahal ah oo magacii ragga Soomaaliyeed wata oo dadcun ahaa oo arxan laawo ah yaani maaragtay oo dhibaateeyay lama waayo gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo ehelkiiba waan uga tacsiinaya horta falkaasi foosha xun ee gabdhaha Soomaaliyeed qalbigooda runtii taabanaya maxaan ku ilaahdaaye to yaani gaarsiinaya heer ay raggii Soomaaliyeedba ay aamini waayaan marka taa laga yimaado dhacdadan sida adigu aad horeba u sheegtay gabadhu waxay joogtay guri qaraabadeeda ah oo gurigii aabaheed iyo hooyadeed ma aysan joogin xaafadaasay ku noolayd oo waalidkeedaas soo korsaday halkaasay wax ku baranaysay waxay dhamaysay yaani dugsiga sare ee hadda dhamayso ardaydii dugsiga sare ka baxday ee ka mid ahayd ee uu goodax bari yiri way dhaceen ee qayb ka ahayd okay gabadhu marka sida waalidkeed ay sheegeen waxay aaday guriga ayeydeeda oo ay maaragtay maalinka jimcaha ah ay hawl u soo qabqaban jirtay oo dharka iyo maryaha iyo maaragtay ay wax u soo dhaqi jirtay halkaas ay adigu reerka uga tagtay reerkii waxa ugu xigay teleefankii gabadha oo laga waco oo leeyahay gabadha meydkeedii wuxuu yaalaa isbitaal hebel soo doonta waxay noqotay uun arrin masiibo ah oo de gabadhii la filayay inay reerkeedii iyo maxaan ku ilaahay ayeedeed la jirto arrintii markii adigu la baaray hawshii la baaray ee la daba galay waxa la ogaaday gabadhan in laga soo tuuray dabaq dhowr biyaana ama dhowr dabaq ah markii laga soo tuurayna de ay halkaas
ay ku dhimatay kadib soo tuuristaas baaritaan la sameeyey haddana waxaa la caddeeyey in maxaan ku idhaahdaa gabadha inta aan dabaqa laga soo tuurin in loo geystay yacni kufsi haa in kufsi loo geystay oo gabadhaas yacni kufsi iyo dil la isugu daray haa rag meeshaa deganaana ay u geysteen waa fal tiiraanyo iyo argagaxle runtii hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka dalka Soomaaliya iyagu tan iyo markii intii falkaasi uu dhacay waxay ku jireen dadaal sidii ay u soo qaban lahaayeen ama ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen dambiilayaashii falkaasi geystay oo ah rag la yaqaano oo la og yahay waxaa la xaqiijinayaa ama wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in qayb ka mid ah raggaasi in la qabtay haa anaguse ma hubno inay iyaga yihiin falka kuwii geystay iyo inay kuwo kaleo ka agdhowaa yihiin laakiin sida kasoo yeedha hay-adaha ammaanka qayb ahaan dadkii dembigaas galay ama gabadhaas masaakiinta ah kufsiga iyo dilka isugu daray waa la qabtay baa la yidhi say dooniba ha noqoto falkani ma aha fal kow ah fal uguba ma aha waa fal soo noqnoqonayey oo in badan meelo badan oo dalka Soomaaliya ka dhacay meel una ka dhicin dalka Soomaaliya ma jiro anigu ma garanayo dhibaatada iyo masiibadani yacni raggii Soomaaliyeed waxa ku dhaqaajiyay gabdha kuwa rag kala fuulayna maalin waaba la sheegay baydhabo oo iyagana laha waa la dilay marka arrintan anigu يعني wax maskaxdayda wax qofka bili aan maskaxdaydu moogtahay heer ayna gaarin baa jirtay arrintan heer ayna maskaxdaydu gaarin bay gaarsiisayba يعني wax kugu soo dhici kara iyo wax aan kugu soo dhici karin baa jira moogtahay wiil iyo gabadh iyo laba gabdhood laba wiil oo gabadh kufsatay iyo waxaasi way soo jiri jireen oo wax maarata si buuran maaha laakiin koox raga inta gabadh kufsato haddana gabdha aan qaan gaarin 5 jir iyo 6 jir iyo 4 jir baa lagu leeyahay nin weyn oo 40 jir ah kufsaday ما أها فل كان مركب فل ماركتي عصب وحنا كذا فل ماركتي يعني هذا كان كوب اللو ذي معها وواحد سوس علوي وقبلها هذين اللي دي هي قال كعيه هايد عاش يري وحي اللي أجا لو جيستي برعاء يكاد عضي سيدنا وكلا فل اسمه أرجح أوله وقبل يرى محن كل أفرتير مياه مثل اللي حشير وحنا عاص لو كوف صدي قال دقب يدنا سيدنا كلا يعني وحوا وح ماركتي سوتشي تمهيو أدمودو wax maaragtay yani qorshe kale ama arrimo kale ama wax kale ay ka dambeeyaan marka arintani waa arrin kulli masiibo ah waxay u baahan tahay marka si aan dhayal ku jirin in loo baaro falkan dadka sameeyay dadkii ay ku lug lahaayeen iyo meesha ficilkan ama falkan hindisihiisu uu ka yimid qofku kufsi wuu geli karaa fal dambiyeed wuu geli karaa laakiin dilka in uu raaciyo oo waliba si cadaymihii loo qariyo dabaq laga soo tuuro ama la jarjaro oo baangad lagu jarjaro iyo mindi fal caadi ma aha falalka marka noocana hay'adaha ammaanka waxa rabaa mas'uuliyad weyn intay iska saaraan iyo culays in ay muujiyaan falkan cidda ka dambeysay hindisihiisa iyo halka uu ka yimid originally ama asal ahaan halkii laga soo abaabulay anigu falkan uma aaminsani ama ismalihi dad miir qaba oo Soomaaliya yaa sameeyay laba waa mid dadka waxaan sameynaya in ay ka dambeeyaan dad kale oo ficilkani uu yahay ficil maxaan ku dhahdaa meel kale laga soo abaabulayo oo dad kale ay ka dambeeyaan Soomaalina loo adeegsanayo iyo in maxaan ku idhaahdaayeeto dadkani ay droogaysan yihiin oo dad draagisa ay yihiin waa labada mid weeye marka hay'adaha ammaanku dadka bal ha qanciyaan falalkan soo noqnoqonaya ee haddana dadkii dhibka geystay si fudud u leeyahay waa la toogtay ama way baxsadeen oo waayahay haddii waxaan falkani fal maartay meel kale uu ka dambeeya ahaa kii xogta laga heli lahaana haddaba la dilo ama uu baxsado dee maxaan ku idhahdaa ay moogtay waa wax kale falkii uu sii soconayaa waa tajaamucu dhacdadan maadaama ay tahay dhacdo xanuun badan culimada Soomaaliyeed iyaga indha iyo dhagaba u ah bulshada Soomaaliyeed dhacdooyinka noocan oo kale taahana inay ka hadlaan dadku waxay leeyihiin waa laga maarmaan dad badan waxay isweydiinayeen oo Facebook iyo baraha bulshada ay soo dhigayeen waxa culimada Soomaaliyeed ku dhacay la aaminsan yihiin hawlaha noocan oo kale ay uga hadlayeen ma la dhigi karaa halkaas dhaliil bay ku leeyihiin culimadii horta wixii dhaliil waa goonideeda laakiin culimada Soomaalidu mar walba ay hadlaan dadka Soomaaliduna wacdiga waxba kuma qaadato umada Soomaaliyeed
wacdi oo dhan marka la soo aruuriyo ilaahay ha laga cabsado isugu imaan war gabdhaha yaan la kufsanin war dadka yaan la dilin war yaan isbaara la dhiganin war dadka yaan la biliqaysanin waxaasoo dhan soo wad salkeedu waa ilaahay ka cabsado qofkii ilaahay ka cabsanayo gabadhna ma kufsanayo isbaarana ma dhiganayo maxaan ku idhahdaa dadna ma boobayo dadkana maxaan ku idhahdaa dhuunta uma gelayo marka culimada Soomaaliyeed intay hadli kareen waa hadlaan ama hal laga qaato ama laga qaadan aniga hadda ima muuqato waxyaalo guud oo maaragtay wacdi guud oo ay ka gaabiyeen ima muuqato falkan kufsiga ana de waa imtixaan iyo masiibo dalka ku socotee culimada hadda anu meel laga eedeeyo aniga ima muuqato sababtoo wacdiga 24 saac arti waan maray sheekhan muxuu ahaa sheekhan xamar jooge ee dadka u shactireeya maxaa sheekh Cabdi Xayi ها سير أو فضود أو بسيط يو لأن يرى ذا وحوش يا مكت أو ير مارك تدقون مجرته هو أي كتير تمشاتشيلو يسوي شيء يو مارك تايت قفكي سو أن كعاجسين قطبذي أما وعي لودي هذا نوح أو كهذا يو واحد رب أويان أو ريالتي أويان أرمها بشدة يبي أذونا أنت بدن يو كهذا علماء الصومال مركز ستوس يسيد ضبamba ولا هذلان محن كده هذايتو بلشدة لكن بحني مصيبة ويان بحني ومصيبة ووحن وحل الربو الدولة بدلك كتير تمجع وضته مجع الدولة ده إن محن كده هذايتو لوجها والقرويان واحد مجع علماء اللي جوبا تنكره تذكر الصومال دون هذا واحد مدوع دي أنتو كبتي وشو ملا الله علماء ذي باتي ويجي لحظة ذي علماء ذي يسكو خلافين ها يجي marka waa lagu dhex wareeray moogtay culimada nafirkeedii yaa lagu dhex wareeray oo markuu mid yiraahdo kan wuxuu sheegayo waa been oo mid kale uu ku dhaho kan wuxuu ka hadlayo waa khuraafaad iyo maxaan ku yiraahdaa to iyo mushrignimo oo mid uu yiraahdo maxaan kan qaburuhu caabudaa oo mid uu yiraahdo kan waa wahaabiye iyo magacyo kale uu u bixiyo oo maxaan ku dhaqaar dadka ay qowracaan waa lagu dhex iyagii baa moogtay bulshadii ku dhex wareeraysa moogtay marka dawladda waxa la rabaa kaalinteedii dawladnimo inay qaadato dadka falalka noocan ah geysanaya ma aha dad cirka ka soo dhacay waa dad la yaqaano muqdisho guriga ku xiga uu yaqaana gurigan inta qof ee soo gashay ee xalay u hooyatay markii si dhab ah loo baaro waa la ogaanayaa kuwii falka geystay waa la helayaa markii la soo helay iyaga ficilkan hadii uu yahay ficil iyaga ka dhashay iyo hadii uu yahay ficil meel kale laga soo maaragtay tuuray ama laga soo waariday waa in hay'adaha ammaanku ay maxaan ku yiraahdaa baaraan waa in bulshada la wadaagaan waa in marka bulshada laga jaahil bixiyo ficilada noocan ee soo noqnoqonaya ee dalka Soomaaliya ka dhacayaahi maxay salka ku hayaan isba waa in la ogaado ha tima markii la yiraahdo CID markii la yiraahdo criminal investigation department inay tahay baan jeclahay waaxda dambi baarista shaqadeedu maxay tahay fal kaste oo dhaca in ay baaraan oo sababtii iyo wixii keenay ay bulshada u soo bandhigaan ay ogaadaan kadibna markii falkaasi baaristiisu ay soo gabagabowdo ee bulshada la wadaago lagu dadaalo sidii mid la mid uusan u dhici lahayn way fahanteen baan maleynaya hay'adihii dawladda marka yaa meeshoodii gabay waxa lagu leeyahay waxbuu kufsado tiirka la geeyo waa la dilay kaba soo qaadba waa la dilay qofkan intaan la dilin waa sax la dilaba hadii uu mutaysta kiis dilahe laakiin falkan waa in baaris dheer lagu sameeyo qofka oo tiirka lagu ordo waa qayb kamid ah qarinta cadeymaha faldambiyeedyada dhacay cadeymahoodii oo la qarinayay ayuu qayb ka noqonayaa dilku dadkan la leeyahay al-shabaab bay ahaayeen maalin walba la dilayo waxa suuragal ah qayb badan oo kamid ah maxaan ku yiraahdaa iyaga in cadeymo ay hayaan ama xoga ay hayaan ama xoga hadii ay sii joogaan maartay u baahnaan lahaa su'aalo in laga weydiiyo in maartay lagu qarinayo waxba isku dhex wareegsan anu dadkan marka faldambiyeedyada dhacay waxaan oo arkaa in aan si dhab ah looga hawlgalaynin oo hay'adihii dawladdu kaalintii ay ku lahaayeen in aysan ka gudanaynin ama waajibkooda taa kale dhibka jira wuxuu yahay fal kasta oo dhaca waxay dooniba ha noqotee hadduu qarax yahay hadii uu yahay maxaan ku idhaahdaa kufsi hadii uu yahay dil madax jabinka xamar looga yaqaan oo kala ah hay'aduhu markii uu dhaco ee baadhis lagu sameeyo shacabka lama wadaago haddaan shacabka la wadaagaynin waxaan loo gudbinaynin oo sidii u dhacay shacabka inta loo sheego aanay shacabku qayb ka noqonaynin ka hortagga faldambiyeedyada noocaasa sababta loo baarayo anigu ma garanin wixii sir qarana waa gooni laakiin markii dawladdu baadhis ay samaysay hay'adaha dambi baadhistu waa la kala qaybiyaa mid waa sir heer maaragtay CID midna waa sir heer qaran ay noqon kartaa Soomaaliya garan markii siraha noocaas laga saaro
si guud sidii waxaan ay u dhaceen iyo ciddii ka dambeysay iyo meelihii laga soo abaabulay iyadoo aan la wada sheegayn oo inta sirta aan laga saarayo waa in shacabka maaragtay loo soo bandhigo oo la yidhaahdo baadhistii intaasaa ka soo baxday qodobo noocaas oo loo soo qoondeeyey waa in dadweynaha lala wadaago si dadweynuhu hadda ka dambe ay qayb uga noqdaan kalsoonina ay ugu muujiyaan hay-adaha ammaanka laakiin waxaad moodaa meesha xirfad la-aan iyo dadkii aqoonta iyo maaragtay waxaan u lahaa oo aan gacanta ku haynin oo laga yaabo fal la baadhay oo wax sir aho uu xambaarsan yahay ayna jirin inaan lala wadaagin qaabkii uu u dhacay bulshada inaan lala wadaagin kadibna bulshadu ay qaafil ka ahaato maalin kastana wax ay bulshadu ka hortegi karto oo hay-adaha ammaanka ay la wadaagi karto in ay dhacaan marka dhibka ugu badan hay-adaha ammaanka gaar ahaan waaxda dembi baadhista yaa iska leh oo aan falalka dhacaya ummadda la wadaagaynin qaybta ay ku leeyihiin aad u mahadsan yahay jaamac galab daawadayaal intan qaybtana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa oo aan uga hadlaynay gabadh yar oo waxaa weeye 12 sano jir ahayd oo la yidhaahdo xamdi maxamed oo daraad magaalada muqdisho caasimada soomaaliya gurigii ay ku nooleyd ka baxday kadibna guri ayadeed aaday si ay dharka ugu soo dhaqdo oo ay soo caawiso waxaa dhacday gabadhii in waxa weeye meel hotel ah dabcan loogu yeeray hotelkiina waxa weeye lagu kufsaday kadibna dabaq 6 biyaanaha laga soo tuuray halkaana ay ku dhimatay shalayna lagu aasay qubuuraha ama qaar kamid qubuuraha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya arrintaas oo argagax iyo murugo iyo xanuun iyo tiraanya ku abuurtay eheladii gabadhaasi iyo waliba dadka Soomaaliyeed xaajadan ugu maahan meelo badan oo Soomaaliya kamid ah ka dhacday in gabdhaha intii la kufsado haddana waxa weeye la dilo oo qudhaba laga jaro maamulada kala duwan ee Soomaaliya ha ahaadaan heer dowlad goboleed ilaa heer federaal waxaan rajaynaynaa in tallaabooyinka noocan oo kale tahay iyo falalkan arxan darrada ee dumarka Soomaaliyeed ee biimigeydaha lagu la kacayo in laga hortago dadka waxa weeye hawlahan oo kale lugta ku lehna ama maaragtay ku lug lehna la soo qabto oo ciqaabtii ay mudnaayeen la mariyo hawlaha noocan oo kale tahay inaysan dib u dhicin baan rajaynaynaa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qodobkan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo saaxiibayaal